saaka oo ay taariikhdu ku beegnayd bilowga sanad cusub waxaa magaalada baargaal ee gobolka raas caseer ka qabsoomay munaasabad taariikhi ah oo lagu dooranayo hoggaanka cusub ee ururka haweenka degmada baargaal doorashadan oo u dhacday si hufan oo waafaqsan hannaanka dimuqraadiyadda ee qof iyo cod ee uu hirgeliyey madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani kaasoo ujeeddadiisu ahayd in awoodda loo daweeyo shacabka doorashadan oo ay si heesare u soo qaban qaabisay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Raas Caseer Camran Maxamed Maxamuud waxa goobjoog ka ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada baargaal dhammaan ka qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen in doorka haweenku uu yahay tiirka nabadda horumarka iyo dhismaha bulshada Puntland gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Raas Caseer ayaa munaasabadda ka jeedisay khudbad dhinacyo badan taabanaysay iyadoo oo ku boorisay haweenka qayb ka noqdaan go'aan gaalista deegaanka